halkani waa xarunta degmada Daynile oo ka mid ah degmooyinka xiga duleedka Muqdisho waxaana xilli habeen ah lagu qabtay bandhig faneed ay ka soo qayb galeen dadweyne kor u dhaafaya 1,000 qof waxaana goobjoog ka ahaa bandhigani mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejnayiriso ujeedka bandhigani ayaa ahaa mid lagu muujinayay horumarka nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee ka jira caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana bandhig faneedkani suugaan kala duwan ku soo bandhigay Farxiyo Kabayare iyo Xasan Gantaal oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay madasha ay munaasabadani ka socotay ayaa ahayd mid aad u camiran waxaana dadweynaha goobta ku sugnaa ay dareemayeen kalsooni amni mana jirin ilaalo u dhaxaysay madaxda iyo shacabkaba taas oo ku tusaysa isbeddelka amni ee muuqda gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir mudane Maxamed Abuukar Jacfar ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay bandhiga lagu qabtay degmadaasi الرحيم أنا أرتا وفرح الله أنا حفلت مثلا كدعيفة أو بدك فنادق أو يسوي فنانينتا يا شعب في قبل كبنادر أو كلامسنين الحين ملاين الأرضين اللي يوطي المشي بالأمن والله سوي ما كان أول ساعة بنقول وحوي جرب maamulka gobolka Banaadir ayaa wada qorshayaal lagu xoojinayo kalsoonida shacabka iyo hay'adaha dawladda taas oo qayb ka barnaamijyada lagu horumarinayo isdhexgalka bulshada iyo nabadgelyada caasimadda Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho